الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وبعد سأوجدان وحال كان يالو سرقال كتر سنة أرورك الشباب دقر قوياشة شخص كمد أحا لكن هذا ميدا سيدة الأركتان إلهي فضلgiis asaga iyo saraakiil kale iyo ciidan tiradoodu ay dhan tahay ilaa iyo 16 afar kamidana ay yihiin saraakiil uu kamid yahay Maxamed Maxamuud Cali oo shacabkaygu u yaqaanaan dulyadayn iyo Farxaan iyo Macal Isxaaq oo ahaa ninkii qaraxyada iyo dhibaatada u qaabilsanaa qaasatan magaalada Kismaayo iyo nawaxigeeda dhagar qabayaasha inay xalay ku guuleysteen ciidamada iyada Soomaaliyeed oo kala ah ciidanka sida gaarka u tababaran ee dawladda Jubbaland iyo ciidanka sida gaarka u tababaran ee dawladda Soomaaliyeed ee dawladda dhexe ka tirsan militariga ah howlgal ay ka wada midaysnaayeen oo isla fuliyeen labadaas ciidan in ilaahi fadligiis ay sababtay in saraakiishaas afartoon sheegay iyo 12 askari oo kaleba ay ku dilaan kadibna ay halkaas ku soo qabtaan gaarigii uu watay sargaalka hadda meedkiisa uu hoos yaalay ee dulyadeen ee qalab fara badan oo ciidan oo saarnaa taas waxa ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa ta'aala in awalan allihii naga badbaadiyay shartoodii iyo dhibaatadii ay ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan darisadii iyo beesha caalamka intaba ay ku hayeen diinta Allah subxaanahu wa ta'aala oo sidaan ognahay ay u geysteen dhibaato fara badan iyo qaribaad ila diinteedu waa diin nasteexa ah oo masaajidada ilaahay iyo in la camiro ay diinteedu amartay ay u noqdeen kuwa qariban oo la xiro oo la iskaga tago oo cidna aysan ku tukanin ayadoo cabsi laga qabo shakhsiyaad ninkan uu kamid ahaa ay sabab u ahayd allahaas shartooda naga badbaadiya awalan mahad iska leh waxa mahad gaar ah iska leh ammaan ciidamadii geeshiyaasha ahaa